قفل بحالي هذا هرت بحب وحن فن كان يجي دفن Soomaaliyeedna wax laga dhaxlo ma jirto kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad adduunka ka joogtaan ku soo dhawaada barta YouTube-ka aan ku leenahay Burhan Media TV kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan uga hadli doono warar sheegaya inuu fanka ka fariisan rabo fanaanka weyn Sultan Seyraar iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda Khamar Suugaani daawada haddii aad ku cusub tahay barta YouTube-ka aan ku leenahay waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka like gareyso YouTube-kana aad subscribe noo saarto mahadsanid waxa bilihii ugu dambeeyay fanka ka sii baxay fanaaniinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka soo jeeda deegaanada maamulka Somaliland haba ugu dambeeyay fanaanka loo yaqaan Maxamed BK ayaa fanka ka baxay isbuucii la soo dhaafay waxa uu shaaciyay inuu gabi ahaanba fanka iskaga baxay isagoona ku sii daray inuu fanka yahay mid lagu naartago sidoo kale waxa uu sheegay in lacagta fanka laga helo ay tahay mid aan baraka lahayn isagoo tusaale u soo qaatay inay la mid tahay lacagaha ay helaan burcadbadeeda muddo laga joogo bilooyin waxa fanka ka baxay Cabdihani Xaashi waxa uu sheegay inuu fanku yahay mid aad u xun uusan ahayn waxa laga sheego Cabdihani oo ka tirsan koox lagu magacaabo xidigaha geeska kuwaasi oo ka dhisan Somaliland ayaa hadda wuxuu tafsiirka ka bartaa masaajid ku yaala magaalada Hargeysa warar hadda soo baxaya ayaa sheegaya in Sultan Seyraar la filayo inuu dhawaan fanka ka baxo sida uu bartiisa Facebook ku soo qoray Maxamed BK qoraal kooban uu soo dhigay bartiisa Facebook ayaa u qornaa sida tan maalmahan waxa isoo gaaraya warar sheegaya in walaalkay Sultan Seyraar Guhaad uu rabo inuu go'aan ka qaato fanka go'aankii aan qaatay mid la mid ah isagoo isla markaana damacsan inuu gabi ahaanba soo gabagabeeyo ku sii jiritaanka fanka waxaan leeyahay Allah ku rumeeyo hana waafajiyo go'aankiisa idinkuna ku dhiirigeliya fikirkaas uguna duceeya walaalayaal waxa qoraalkaas bartiisa Facebook soo dhigay fanaankii hore uga baxay fanka Maxamed BK dhanka kale salaadii khudbada jimcaha maantay masaajid ku yaala magaalada Hargeysa waxa ugu duceeyay Maxamed BK Sheekh Barbaraawi waxa uu fanaaniinta kale sheekhu u diray fariin ah inay qaataan go'aan la mid ah midka uu qaatay walaalkood Maxamed BK sida jamaca masaajidku ay ogaayeen jimci hore waxaynu ka hadalnay dhiirigelinay walaalaha heesaha iyo waxa la xiriira ka shaqayn jiray ama ku hawlanaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala daraadii uga toobad keenay sidii oo kale maantana waxaynu soo booqday oo inoo yimi oo nala soo tukaday walaalkeena Maxamed Mubaarak waxaan moodayaalkii kala baxay waxaan hadda ka fikirayay inaan idhaahdo Maxamed BK baa lagu oran jiray BK-gaasi barak ku noqonaya insha Allah marka isaga la yiri hadda intaan anagu oran Maxamed Mubaarak Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku barakeeyo Rabbina subhanahu wa ta'ala dhamaanteedna toobada ayna waafajiyo aamin dhamaanteedna khalad iyo gaf weyn uga Allah sharaf bay u tahay qofku inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uga toobad keeno Ilaahay daraadii inuu uga tago wax laga yaabo inuu markaa muuqaalaha dadka ugu muuqday inuu magac iyo maamuus iyo sharaf u leeyahay ama adduunyo laga heli hadduu Ilaahay daraadii uga tagana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku bedelaya wax ka khayr badan waxaynu sidoo u samaynaynaa waxaynu dhiirigelinaynaa walaalaha kale iyagu weli ku sii harsan oo aynu leenahay walaalaha faraha badan هذا كحماتي سترى ما إلهي درس وقتجي صنف عمل كذا يركض يشبضا إذا كنا إن شاء الله تعالى وتقضي الدونتان سيدا يالين يالين الدونتان ذلك غير كله خير كذا كلام لك على ما شركة يحمان تنا إبليس هو كل شيء إنه هو ولا يا وحلقيها ما قال كل دوام إلى بين إلى هذا ما قف قال ما قف يو شهادة له قبلين ولكن محمد يا رجال ميت كايمر كهرباء المسلمين إنه نوى الدبابنا ما معناه إنه يقول خالد يكون شيء وإنه وين الخالد قريب لكن يضد كلام ميت كاي سيدا جمعيه هذا الشيء وعند هذا كلام كدويه ضد لا يجعل يو أو ضد يلا يو أو ضد فرق بدن الشقة قبل يعني كنت دبابين أي هاي حديها يجيب خالد كتجانا ضد فرق بدن تصاروا نقول يو ومدة نحن يجعلها كوي تاجر شري إن شاء الله تعالى راكو يا وريا منهم تكفيرين هذا السن قفك مسلم كاي وحويا هيسا ومسلم جراعة أما إن أنت بصراحة إسقاوسا يقالتها هاي وعلى مسنا وحاسون معسية خالدي هاي واجب كروي هاي قفك سوا مسلم ودن بابا qoraalkan ayaa waxa bartiisa Facebook ku soo sheer gareeyay Axmed
cabdikariin maxamed oo ku magac dheeraa axmed biif kaasi oo muddo laga joogo 3 sano ka hor fanka iskaga baxay. axmed biif oo hadda loo yaqaan axmed khayr ayaa wuxuu yahay sheekh caalim ah wuxuuna fanaaniinta hadda fanka ku jirta ku wacyigeliyaa inay fanka iskaga baxaan sida wararka ay sheegayaan inuu ahaa sheekhi ka dambeeyay ka bixitaankii oo fanka ka baxay cabdixani xaashi kaasi oo ahaayeen saaxiibo dhow. haddaba waa kuma Suldaan Seraar oo intiina badan kaliya aad u taqaanaan inuu yahay fanaan. Suldaan Seraar Guhaad waa fanaan ka soo jeeda dhul deegaanka Soomaalida Itoobiya waxa uu fanka ku soo biiray sanadkii 2013 kaasi oo ku soo caan baxay koox la oran jiray Elesban. dhowr jeer oo suldaanka fanka wax laga weydiiyay uu ka gaabsaday laakiin ma uusan ka gaabsan inuu gabi ahaanba mar uun jecel yahay inuu fanka iskaga baxo. Suldaan Seraar ma ahan sida fanaaniinta kale heesaha uu qaadana lama soo duubo dumar asagoo ku dhegdhegayo waana sababta keentay in loogu yeero suldaanka. dhanka kale wararka ka imaanaya magaalada Hargeysa ayaa sheegayo in xaaladda Qamar Suugaani ay tahay mid aad u xun. Qamar Suugaani ayaa dhawaan lagu xiray Hargeysa isagoo lagu eedeeyay inuu tagay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. wararka ayaa intaas waxa ay ku darayaan in xitaa loo diiday in ay soo boqdaan qoyskiisa ay ugu horeyso hooyadiis oo wax laga weydiiyay xariga wiilkeeda ayaa ku jawaabtay inuu u xiran yahay dawladdiisa laakiin uusan ku xirneen meel kale. Somaliland ayaa waxa ay ka soo horjeedaa in fanaaniinta ka soo jeeda deegaanadooda ay tagaan waxa ay ugu yeereen Soomaaliya. walow Somaliland lagu xanto inay ku kala duwan yihiin fanaaniinta taasi oo cadeen ay u tahay in fanaaniinta qaar ay tagaan magaalada Muqdisho waxaana kamid ah Abwaan Laab Saalax oo 2 isbuuc ka hor ku sugnaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waana sababta keentay in fanaaniinta qaar loogu kala eexdo imaanshiyaha Muqdisho ay imaanayaan. haddaba daawade adigana daawanaya maxay kula tahay dhanka kale ma isleedahay Suldaan Seraar fanka uu ka bixi karaa maxaana ka aaminsan tahay fanka Soomaalida guud ahaanba iyo gabi ahaanba barnaamijkeena intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa waxaana kala socoteen barta YouTube-ka aan ku leenahay Burhan Media TV. daawade haddii aad ku cusub tahay barta YouTube-ka aan ku leenahay waxaan mar kale ka codsanayaa inaad muuqaalka like gareyso YouTube-kana subscribe aad noo saarto.